iyadoo si soo tarayaan hambalooyinka taageerada madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiwali Cali Gaas madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cabdilaahi Cumar Camay iyo gudoomiyaha baarlamaanka mudane Siciid Maxamed Sire ayaa waxaa maanta magaalada Ceerigaabo lagu qabtay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayo madaxda cusub ee maamulka Puntland isla markaana lagu sii sagootinayo madaxdii hore ee maamulkaas munaasabaddan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo waxay dhamaanba dadkii ka soo qayb galay madashaasi si isku mid ah u soo dhaweeyeen hoggaanka cusub ee maamulka Puntland loo doortay hadaladoodina waxaa ka mid ahaa shawaynta ka soo qayb gashay xafladda qaaliga ee loogu hambalyeeyo maamul goboleedka Puntland anigoo ah maxay ahayd shawaynta degmada Ceerigaabo gaar ahaan koonfur sanaag waxaan u hambalyeeynaya madaxweynaha Cabdiwali Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdilaahi Cumar Camay waxaan gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta badan ee sida karaamada lagu soo doortay dowladda cusub waxaan leenahay madaxweynaha Gaas waa lagu sugayay nasiibkaagina waa ku guuleysatay annagoo ah reer Ceerigaabo waan ku soo hambalyeeynaa waxaan farxadda la qaybsanaynaa maamul goboleedka Puntland ee walaalaha waxaan leenahay Cabdiwali ha noqdo kii wax badan oo mugdi ku jiray Puntland kii ka saari lahaa ilaahay ka dhigo kii Soomaali Maxamed oo dhan midayn lahaa ilaahay ka dhigo waan ku soo duceynaynaa Anisa Maxamuud waxaan u hambalyeeynaa Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdilaahi Cumar Camay waxaan leeyahay soo dhawaada runtii farxadda lama soo koobi karo badan baan faraxsanahay waxaad moodaa macnaha dawladnimada goboleedka Puntland inay si fiican gacanta maanta ay noogu jirto oo waa cusub noo bariyay oo waa mugdi naga kacay alxamdulillah rabbil caalamiin gaar ahaan haddaanu nahay gobolada soo sanaag iyo calanada dawladda iyada waanu ka oomanahay oo waanu oomanahay runtiina waxa weyn Cabdilaahi Yuusuf Axmed dawladda nooga dambeeyay Cabdilaahi Yuusuf maanta inaanu dhiman u nool yahay oo noo soo dhashay hambalyo adballaan soo jeedinaya baarlamaanka Puntland ee sida sharafta leh u soo doortay madaxweyne ku-xigeenka ra'iisul baarlamaanka ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu xilka loo doortay uu ku guuleeyo ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Shiilaayo in laga wada shaqeeyo amniga nabadgelyada midnimada Soomaaliland iyo Puntland assalaamu calaykum dareenkeena muujino inagoo ka warqabnay doorashadii ka dhacday Puntland oo taasoo aynu muddo saadaalinay in isbedel inoo yimaado marka maanta waxaynu isugu nimineen oo hambalyeeyno madaxweynaheena cusub Cabdiwali Cali Gaas runtiina waxaynu ka firaynaa inuu isbedel weyn inoo yimaado meesha aynu isugu nimi xafladana waa Ceerigaabo waxaynu hambalyo kale u sii diraynaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cumar Camay waxaynu sii sagootaynaa isaga laftiisa hawl badan qabtay madaxweynihii hore ee Cabdiraxmaan Faroole